kadib markii shalay warqad ka soo baxday madax xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan lagu cadeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ka baxday heshiiska ee la galshay Ahlus Sunnah wal Jamaa ayaa arintaasi waxa siyaabo kala duwan uga falceliyay culimada siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxa sidoo kale maanta banaanbax lagu taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya loogana soo horjeeday inuu dagaal ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa isku soo baxay bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ay socdaal ku mareen wadada weyn ee dhexmartay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug halku dhiga ay banaanbaxayaasha ku qowlayeen ayaa ahaa dowladii dooni mayno daneysta dooni mayno qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay telefishinka Galmudug ayaa cabiray fikirkooda ku aadan arrimaha siyaasadeed ee dhawaanahan ka soo cusbaanaaday magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxa weeye aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay gabar magaalada u dhawata Dhuusamareeb waxaan doonayaa ma jecelahay nabadda waxaan diidayaa dadka isku muuqda waxaan diidayaa aabba iyo walaalka in laba god kala galaan waxaan diidayaa adeerka iyo wiilkiisa in laba god kala galaan hal la israaco hal la isku tiirsanaado dad isku mid ah oo isku meel u jeeda aan noqono anigu hadda dawladda ma raacsan sufana ma raacsan laakiin waxaan doonayaa nabadda in ay tiir bir noqoto ayada ahayd sida noo waajin nabadda noo waato sida noo dee bismillaahir rahmaanir rahiim in yar taxaa barnaamij noo gudbisay ummadda codsanayna oo ka codsanayna dhibaatada in la waana mahadsantahay magacaygu waa Najiib Cabdilaahi Faarax waxaan rabnaa in wax kasta ku dhamaadaan wixii nabad lagu dhameey karo in xabad lagu iyo qaadir xaashi waxa bilaabmay xabad marabna taas tara xabad nagu socotay halkaas ayaa ku soo Cabdul Fataax Maxamed Axmed Galmudug TV Dhuusamareeb